Asalaamu calaykum akhyaarta sharafta leh galab wanaagsan maalin wanaagsan duhur wanaagsan adduunyada meel walba aad ka joogtaan maanta waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena crowd one ayaan si dhinac walba ka eegi doonaa waxaan ku samayn doonaa baaritaan aad iyo aad u dheer crowd one markii aad iska rajiis garayso ama aad gasho website-kooda aad ku qorto google-ka waxaa kuu soo baxaysaa sidan markii ay kuu soo baxdana waxaad arkaysaa iyadoo lagu leeyahay qoraaladan oo ah impossible is nothing, wax aan macquul ahayn maba jiraanba. Marka crowd one waa meel lacag laga helo oo intaad lacagtaada package ku gadato aad investment ka helayso, laakiin inta aanan ba gudaha u gelin waxyaabahaas waxaan rabaa inaan website-ka markii aad soo gasho halkan waa login-ka meesha laga galo iyo meesha la iska register gareeyo. Hoosna waxaa ku qoran about us waxa ay yihiin privacy policy-ga iyo waxyaabaha iyo join. Marka meel waxaan kuma qorno nala soo xiriir, yacni website-kani meel aad kala xiriiraysa ma lahan, qof ma lahan telephone number, ma lahan waxba ma lahan sida meesha ku qoran. Markii aan galana waxaa ii soo baxaya website-kan asna ii soo baxaya asna wax kale ma lahan, website kale uu kusii dhiibaa, website uu kusii dhiibaa. Marka crowd one waxaa ka mas-uul ah ninkan oo Yon Steel Van Hosten yiraahdo sida meesha ku qoran. Ninkanna markii aan baarnay meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay asalkiisa waa Sweden ayuu ka yimid. Linkinkiisa ay ku qoran tahay waa kaasa magaciisa. Shirkado badan ayuu asaasay sida ay sheegayaan. Shirkad walba oo aan galayna oo aan raadiyana ama waa shirkad hawada ka baxday ama waa shirkad yacni khasaaro weyn keentay oo ayna waxba ka jirin. Sida uu sheegay waxaan waxba kama jiraan oo waan soo baaray oo waa wax aan yacni jirinba haddeertaan xilliga hadda la taagan yahay. Marka sida uu sheegay waa sax, kambaniyaasha uu sheegayo inuu kambaniyaal waaweyn asaaso waa sax, laakiin kambaniyaashaas oo dhan waxay noqdeen kambaniyaal aanan wax horumar aanan samaynin oo aan meel horumar leh aanan gaarin. Wuxuuna ka baxay jaamacadda Stockholm ee ku taalla Sweden. Iyadoo kaleetana Twitter-ka ayaan ka eegay crowd one wax la yiraah maba ku register garaysnaba page-kiisa, wax crowd one la yiraahdaba oo inuu mas-uul ka yahay kuma register garaysno. Waxaan kaloon iyadana macluumaadkan ka soo helay meel kaloo iyadana ah ninkani wuxuu iska gaday 500,000 oo share oo action la yiraahdo. Action waxaa la yiraahdaa shirkadaha oo sida Amazon iyo waxyaabahaas uu iska gaday oo ay dhinacaasina khasaare iyadana uga timid. Waa kaasa magaciisii 12 October ayuu wuxuu iska gaday 500 oo shirkadood. So ninkan waa kana markii aan galnana ka raadinayna Wikipedia-na waa kana magaciisa. Marka crowd fund meeshan ayaa lagu soo qaatay. Crowd fund marka haddii aan jag ku siiyo waxaa arkaysaan ninkan waa CEO-ga crowd one waxaana la aasaasay 2019 multi level marketing ayaa la yidhaha kambanigan. Kambanigana November Norway ayaa laga Norway hoosna ka register yahay, waana gaming game waxaa la dhahaa iyo lottery waxaa la dhahaa kuwan oo qamaarka ciyaaro. Waxaa kaloo dhacay iyadoo ay ku booliiska Burundi waddanka Burundi isdabamarin iyo tuugo lagu qabtay ayaa waddanka Burundi waxaa lagu xiray 300 oo qof oo barnaamijkani xayeysiinaya ama dadka ku soo jiidaya ama dadka soo gelinaya. Waa kana marka Wikipedia ku qortay ku qoran tahay ayagoo dadka ay raadsanayaan commission. waxaana macluumaadka caadi ay meeshaan ku qoran sidoo waqti noogu dhanaa marka waa soo gaagaabinaynaa. Ninkana waa kaas macluumaadkiisa wax dhan oo asaasay waxa uu yahay meesha uu ka yimid
meeshay ku qoran tahay business guuleysta ma jiro oo asaga keenay. Waana kana ninka wadamada badanaa ay ka rajas garaysan yihiin ama ay lacagta ka daldashaan waa wadamada adduunyada saddexaad ee u yaqaanaan gaaladan ama Africa iyo Asia waay. Okay, dadka ambaasadorada u ah oo dadka soo geliya marka maxay ka faa'iidaan ama maxay ka helaan? Waxaa laga yaabaa inuu qof Soomaali adiga kuu sheegay, qof bini'aadan oo kuu sheegaya ma jira meel lacag laga helayo ilaa asaga dan ugu jirta maana asaga inuu wax ka helayo maana. So haddii aad packageka goldiga iibsato oo qofka ku keenay sponsorkaaga oo meeshan joogo qofka laba qof midig iyo bidix ay goldiga iibsadaan 144 euro ayuu ka helaya calaa qof 70 iyo wuxuu ka helayaa 2 euro calaa qof ama $90 ayuu ka helayaa. Marka mar walba qofka ku keenaya wuxuu fiirsanayaa commissionka asaga danta ugu jirto. Marka businesskani muxuu ku shaqeeyaa? Wuxuu ku shaqeeyaa in la keeno qof kale, qofkaas lacagta laga qaado, adiga commission lagaa siiyo maadaama aad keento shaqaale aad tahay, shaqaale daacad aad tahay aan waxba loo dirsanin. Sababtoo ah bangiga waxa looga xiray waxaa ku qoran meeshan in aysan gadaynin wax cad. Bank of Namibia marka wax cad oo aan nimankani ay dad la keena leh qof keena leh lacagta laga qaado lacagta la isku celceliyo. Waa kana waxa aan iska sheegay ma Bank of Namibia iyo bangiyo kale inta waa laga xiray. Iyadoo bangiga oo u cadeeyay pyramid scheme. Pyramid scheme waxaa la dhahaa waxaan oo aan multiple level marketing oo ah tuugo isku tagtay dadka inay dhacaan. Anaa adiga ku keenayo, adiga lacagta laga qaado wax laga siiya, adiga qof kale aad keenaysaa commission uga heshid, qofkaas lacagta laga qaado wax laga siiya. Saasii sheekada ku socday ilaa ay hawshiisaas ku jiidanto. Marka si uusan waqti noogu dheeraanin, marka markaas sida idin sheegaba qof walba mar walba waxaa ka helaysaa 30. Haddii qof oo iibsado packageka silfarka ah iyo hal goldiga 36 waxaa ka helaysaa. Haddii inta uu iibsadana waxaa ka helaysaa 81. Markaas black iyo goldiga. So haddana kan ka soco marka website-kii crowd one taas haddana waxaaba kaaga daranba ninka iskale maba ku qornaba, ninka CEO-ga la leeyahay maba ku qornaba asaga. Waxaaba ku qoran ninkan oo la yiraahdo Biscopiano Stelo. Markaan gelino Twitterka ama linkan geliyna waxa soo baxay nin kale soo baxay oo ninka iskale ku maqan ma waxan ba asaga. Marka waa wax laga yaabo waa kana ninkan waaba ninka Stelo Biscopiano ala. Marka maba ahanba ninka iskale businesska asaga. Ninkan wuxuu ka waa asagu ku qoran laakiin offshore company uu yahay international limit company badan uu shaqeeyaa. Qobrus oo ka register ma jirto. Qobrus oo ka register yahay financial director of international limited company badan oo mas'uul ka yahay ninkan. Laakiin ninkan asaga ayaa ku qoran laakiin asaga ma maamulo businesska laakiin lacagta asaga ayay share wax ku leh oo asaga ay wax ka qaad. Sababtoo website-ka ma uusan ku qornaa lehen London xafiis ay ku leeyihiin company badan ayuu soo shaqeeyay laakiin waxaa jiro company-yaashan internationalka waxaa jira sheeka ah company-ga anaa ku qoran Ingiriis uu ka register yahay qof kale ayaa mas'uul ka ah company-gana canshuurta wuxuu ka bixiyaa wadan aan Ingiriiska ka tirsaneyn oo jasiirad ah. Markaas ayaa waxaa dhacaysa haddii ay dhibaato timaado qofka ku qoran mas'uulka maaha, qofka ka shaqeeyna asaga maba ku register wixii. Marka lacagtaadana cidaa u raacaysa ma laha. Company-ga kale intuu asana affiliate go la yiraahdo. Affiliate go waa kana asna waa company qamaar ah. Asna waxaa ku qoran Biscopiano ayaa ku qoran. Waa kaasa Biscopiano ayaa ku qoran. Organization-ka ay ka tirsan yihiin waa crowd one network Europe. So meesha yaan leeyahay ku dhic kii kale intaasna marka waxaan idin dhihi lahay lacagihiina
horta intii hadda wax gashtay waa gashteen, intii kalena ha ka fiirsadaan. Barnaamijyadani waxaa lagu dhacaa mar walba dadka Soomaalida ah. Sida mar horeba waxaan ka sameeyey video one coin, waana sheegay inay one coin aanan laga helaynin wax lacag ah ama aysan dib dambe usoo noqonaynin. Taasna wax dhacay ayay noqotay. Waxaan iska sheegayana ma ahan, waana idin tusi doonaa caddeynteeda. Hadda ayuu soo baxayaa videoga in yar. Waxaa adag my channel. Waa kana one coin one coin. Waa kana riyadii one coin. Waa barnaamij kale asna wuxuu ahay sidan oo kaleenta ah, oo laakiin kan wuu ka duunaay. Naagti waxay la tagtay $4 bilyan. Walaalkeed hadda Maraykan uu ku xiran yahay, ilaa hadda dacwo ayaa socoto. Lacagtaasna waa khalaas, dib dambe wax loo helaya ma jirto. Marka ciddii rabta iyadana waxay ka heli kartaa one coin, riyadii one coin halkii ayay ku dambeysay. Marka Soomaaliya yaana laga dhicin ayaan dhihi lahay. Lacagihiinana ha iska gelinin waxyaabahan oo kaleento. Dadka idii keenayana ma ahan dad maaragtay waxaan inay baaraan ama aqoon u leh ama garanayaba si loo baaro. Dantiisa keliya ayuu ka fiirsanayaa. Marka waxaan idinka codsanayaa waxaan iska ilaaliya. Haddii aad business galaysana, wax aad markaas lacagtaada kala bixi karto oo lacag intaad shay iibsato, shayga haddana iska iibiso, isla markii lacagtaada kala bixi karto gal. Qof bini'aadan oo kuu sheegaya meel fursad ka jirto. Qof walba horta fursadda asaa wixiisa cunay. Asaa fursadda markuu asaga laqlaqo ayuu kuu sheegayaa. Wuxuu kuu sheegayaa keliya markii fursadda ay asaga dan ugu jirto. Kii traffic monsoonka idii sheegayana waa kana. Traffic monsoon ayaa la yidhahdaa. 2004 sano ka hor ayuu jiray. Waxaa laga dhacay 4 milyan ayaa laga dhacay dad badan oo Soomaali ku jirto, oo hadda aniga aan ku jiray. Dad badan ayaa lagu dhacay oo Yurub jooga ama meel kasta oo jooga. Ninkan ayaa mas'uul ka ah xilligaas. Charles Scofield ayaa la yidhahdaa. Dowladda Maraykanka qabsada intii ka dhacda balaa yaa arkaba ilaa hadda lacagta. Marka ha iska gelina lacagihiina meeshaas. Waa kana naagta iyada 50,000 pound laga dhaca naagta hargeysa. Marka lacagihiina ha iska gelinina meeshaas. Haddii aad rabtana gasho, adaa ikhtiyaar iska leh. Laakiin aniga muhiimadda waxay ahayd inaan idiin sheego waxa aan soo arkay ama sida xaqiiqada ay tahay. Marka waa idinkaasaa. Wixii kaloo macluumaadana waa idinla soo wadaagi doontiin. Waxaa kaloo taas dheer, qof wiil Soomaali ay soo wacay oo leh barnaamijka maxaad u sheegtay inuu yahay tuugo ama riski dadka aan lacagta ka gurtay. Waxaan idhi nin lacagtada ka guro dadkee, waxaan kaa rabaa dadkaani anaa la hadlaya, anaa dhahay waxaan wax jira ma ahane. Waxaan sheegay wax jira ma ahane. Waxaa i tusaysaa caddayn waxaan inay tuugo yihiin. Ilaa hadda uu maqan yahay. Waxaan sugayaa almost 3-4 maalin sugayaa. Wax caddaynana ma hayo, igumana soo noqon. Laakiin wuxuu ka xumay keliya commissionka oo idinka helayo oo aan runta sheegay oo si aad lacag badan u wadi karo. Marka wuxuu leeyahay maxaa businesskayga niyo u hor istaagtay? Ani bariskayga ma hor istaagin. War ani business qof aan geliyay male, business idin soo sheegay malahan, barnaamij aan gal ku dhahay malahan. Adaa ikhtiyaarska. Laakiin waxaani inay tuugo yihiin oo aanan waxba laga faa'iideyn, taas anaa idii hayo. Marka haddii aad rabto inaad business faa'iido, business kala jiro, laakiin waxaan waxba lagama faa'iidayo. Marka intaas ayaan iskaga soo keenaynaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isaga dambe oo xiisa leh. Asalaamu calaykum.